nabadgelyo xalane xarunta hoogga iyo halaagga ee qarsoon caruurta la xado maxarada xalane ee amisom ayaa la geeyaa mabajaajlayaasha qaar ayaa caruurta xada una geeya shakhsiyaad ku sugan xerada xalane ee aan la geli karin maxaadan ogeyn oo ka dhex jira xeradan yaasa ku lug leh iibinta caruurta iyo xubnaha jirka bila'aadamka israac la'aanta dalkeena ayaa qayb ka ah waxa ka dhex socda xarunta xalane warbixintan waxay isdultaagaysaa magaalada aan la aqoon waxa ka dhex socda gudaheeda iyo dibaddeedaba balse marka hore muuqaalka like site si ay u gaarto dad badan oo aan jecelnahay una digayn xarunta xalane ee amisom waa dawlad ka dhex samaysantay muqdisho waxa degan hay'ado aan diiwaangashneen hawshoodana aan la ogeyn waa meel xiran qofna aanu geli karin xitaa madaxda dawladda taasi waxay ka dhigtay in caruurta la qalanayo iyo kuwa keliyaha iyo beerka lagala baxayo iyo kuwa la dhoofinayaba inaysan cidna ka war helin sida ay caddaysay haweeneydan oo la qabtay iyadoo caruur xadaysa منصب محمد عبد العباد ما صدقها سيدا أتلمانتي waxaa laga yaabaa maalin kasta saacadaha ku jira inaan qaabilo dad Soomaaliyeed oo ila soo xiriiriyay sida daraadeedna siyaabo kala duwan caruurtoodu kaga maqan yihiin qatarta weyn ee dadku aysan ku baraarugsaneen ee ka jirta magaalada Muqdisho kuna saabsan caruurta la waayo ama siyaabaha kala duwan ee hadalhayntu hadda ay la xiriirto in caruurta la qaato oo kooxi ay ka ganacsato ayaa magaalada Muqdisho qatarteedu ay ka jirtaa sidaan mar kale ku celinayana waa in dadka Soomaaliyeed badankooda aysan ku baraarugsaneen arrintaas waxaana taasi ay ka dhalatay in adiguba aad bilowdo barnaamijkan sida daraadeedna aniguna aan marti ku noqdo oo ay martinimadeedu qayb ka tahay maadaama page-kayga maalmo badan oo dadka Soomaaliyeed ay ku arkeen in qatartaas iyo dad badan oo la baafinayo oo waaweyn yar isugu jira kamida gabar Soomaaliyeed oo la ii sheegay in iyadoo la arkayay inay mooto ka raacday jidka warshadaha 3 maalmood markii la waayay kadib ayaa gabadhii isla goobtii laga qaaday sheegtay in lagu soo celiyay gabadhu sidoo kale waxay sheegtay in aysan aqoon goobta la geeyay laakiin xilliyada qaar oo ay soo naaxday waxay sheegtay in arkaysay dad badan oo iyadoo kala ah oo goobtaas lagu hayay gurina uu ahaa kuna yaalay magaalada Muqdisho sida ay sheegaysay waxaana ay sidaas oo kale tilmaantay gabadhu in halka lagu hayay aysan xitaa ahayn meel magaalada ka baxsan oo ay xitaa ku qiyaasi kartay qiyaasteeda markay adeegsatay cadaymo aan helay waxay muujinayaan heshiisyo beenaad lagu hoogayo shacabka xerada xalane waa meel lagu dhibaateeyo shacabka dhibaatooyin badan ay ka dhex socdaan walaal Munasir oo waxaan ka codsanayaa hadda marka hore privacy in la ilaaliso laga yaabo darintan in aniga dhibaato ii keento tan kale anagu xarumo badan baa jira laakiin xalane waan deganahay guud ahaan hoteelada Muqdisho iyo meelo badan magaalada kamid ah iyo guud ahaan geeyiga Soomaaliyeed oo dhan baynu ku daadsannahay so waxani waa wax iska jira dunida dhan bay ka jiraan laakiin wali dadka Soomaaliyeed baan moodaa in maaragtay aan soo gaarin dadka qaar in xubnooda iibsadaan duruuf baa ku kalifta qayb si weeyaan marka xalka sida weeyaan walaal xitaa waa meel dharaar cad lagu dhex dili karo cidina aysan wax iska weydiinin qaraxyada amni darrada iyo magaalada oo la soo geliyo waxyaabaha maanka dooriya xalane waa budhiga intaas oo idil sida gobolada degmooyinka ilaa heer tuuro gaaray wuxuu ka soo galaa wadanka dhinaca xuduudaha bariga baddu ka soo galaa ayraboorada xalane waa ka yimaadaa xalane isla xisaabtan dhaba ayay u baahan tahay haddii kale maalin kasta aan ku jirno dhibaatadan inay haysatay aan dhamaadka lahayn